qaybo ka mid ah dawladaha caalamku waxay isku dayayaan inay Afghanistan ka caawiyaan dhinacyada cuntada iyo sidoo kale in laga hortago burbur dhaqaale oo laga cabsi qabo inuu dhawaan dhaco. Dalka Afghanistan ayaa taniya markii ay la wareegeen kooxda Taliban waxa soo wajahay burbur dhaqaale iyo sidoo kale inay hoos u dhacday qiimaha lacagta laga isticmaalo dalka Afghanistan. Tirakoob ay sameysay qaramada midoobay waxa lagu sheegay in kala bar shacabka ku nool Afghanistan ay ku tiirsanayeen taakulada ay siiyaan dawladaha caalamku ka hor intii aanay Taliban qabsanin dalkaasi, balse waxa ay intaasi ku dareen in laga cabsi qabo inay tiradu sii siyaado haddii aan sida ugu dhaqsaha badan looga hortagin. Kulankani oo ay qabatay qaramada midoobay isla mar ahaantaasina ay ka soo qayb galeen dawladaha taageera Afghanistan ayaa waxa lagu shaaciyay in la ururin doono $600 milyan oo dollarka Mareykanka ah, kaasi oo si degdeg ah loogu qaabili doono xaaladda Afghanistan ay ka sii daraysa. Isla mar ahaantaasina qaramada midoobay waxa ay sheegtay in loo baahan yahay $1 bilyan oo dollarka Mareykanka ah, kaasi oo aanay ku jirin $600 milyan ee hore, kuwaasi oo lagula tacaali doono 4 bilood ee soo socda xaaladda dalka Afghanistan ayaa hadda waxa ka jira abaaro, hoos u dhac dhaqaale iyo sidoo kale inay meesha ka baxday qiimaha lacagta Afghanistan. Laakiin xogayaha qaramada midoobay Antonio Guterres waxa uu sheegay in loo baahan yahay isla mar ahaantaasina ay muhiim tahay in lala xiriiro xarakada Taliban si looga hortago dhibaatooyin dhinaca aadamaha, ka ganacsiga maandooriyaha iyo sidoo kale argagixisada. Waxaana uu sheegay in uu aaminsan yahay inay daruuri tahay in xidhiidh lala sameeyo kooxda Taliban xilligan la joogo si loo badbaadiyo kala bar shacabka reer Afghanistan oo hore ugu tiirsanaa taakulo ay beesha caalamku siin jirtay shacabka Afghanistan. Yohanes Cabdiraxmaan, Ariel TV.